inta maanta date bilowdid oo caawa seexatid bari qofna ma soo toosay isagoo dhuuban waxa weeye wax wala fiican samir bay u baahan yihiin fadlan dib ha u noqonina gadaal ha eegin hore u soco yaa waxaa iga dhacay miisaantan 13 kiilo amba 29 pound oo miisaan ah baa jidhkayga aan ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لي وحنا سيديتين مي في عنتين حالدين كصورما أنا ويني وناكسنا هيك صور دواد الموقع العصوم أصحابتي إذا شرفت للودي بلود وجود بيسو حكوت شري بروجرام أو إسعاتين أهم بميزان بأسكري أو وان أسلوبي سو لوضع بلود حاجة دعي ميزان تن 16 كيلو أم بسجال إلا 20 باون وميزان baajidhkayga aan ka jafay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale because muddo badan baan ku riyoonayay inaan miisaanka intaas leeg iska rido finally suurtagalay ay noqotay soo maanta waxaan rabaa inaan videogan idinkula wadaago maxaan sameeyey si aan miisaanka intaas leeg aan iskaga rido maxaan qabtay maxaan cunay maxaa ii suurtageliyay waxyaabahaas waxyar idinka tataaban doonaa insha allah soo ugu horeynan waxaan sameeyaa wax la dhaho intermittent fasting waa fasting amba soon dadka gaalada iyo waxyaabahaas ay sameeyaan soonkaas waxaan galaa habeenkii markay tahay 7 fiidnimo ilaa 10 barka subaxnimo 7 fiidnimo ilaa 10 barka subaxnimo waa muddo 16 saacadood ah waqtiga ugu badan waa la hurdaa 16 saacadood markay tahay 8 waa la hurdaa 8 waa la soo jeedaa soo waqtiga inta la hurdo maahan inta la soo jeedo wuxuu baan cabaa biyo cad amba green tea labadaas shay bas cabaa green tea-gan waxaan ka sameeyaa biyo kulul iyo caleenta green tea-ga 16 saacadood cunto afka ma geliyo haddaan si walba u kaajoonayo wax kale ma cuno wax kale ma cabo labadaas shay bas cabaa cuntadeeda ugu horeyso quraacdii waxaan cunaa 10 barka subaxnimo cuntadeeda ugu dambeyso cashada ahna waxaan cunaa 6 barka maqribnimo soo 10 barka ilaa 6 barka maqribnimo saddex waqtiyo kaliya saan wax cunaa nus saaca iyo snacks iyo waxyaabahaas ma cuno soo cuntooyinkan cuno 10 barka ilaa 6 barka maqribnimo waa idin soo gelin doonaa insha Allah laakiin cuntooyinka aan intaas aan cunaayo 10 barka ilaa 6 barka waa 8 saacadood 8 saacadood cuntooyinkan cunaayo waxaan sameeyaa kuma daro wax saliid haddaan u baahdan waxaan isticmaalaa olive oil amba avocado oil badanka waxaan isku daraa inaan wax saliid aan ku darsanin oo aan cuntada biyo ku karkariyo amba air fryer ka mashiinka la dhaho aan gashto cuntooyinkan cunaayana carbohydrate dhanku ma jirto midda kale aan xawaashidii waxyaabahaas ma isticmaalo wax xawaashi ku jiro dhan ma isticmaalo because xawaashiyaasha waxaa ku badan milixda iyo waxyaabahaas ku badan soo xawaashiyaasha waan iska dhaafa filfil iyo liin dhanaan iyo waxyaabahaas kaliya ku darsada haddii xawaashi u baahdo midda kale cusbada amba milixda cadaanka ahna ma isticmaalo aan waxa isticmaalaa milixda oo pink colorka u eeg pinkiga u eeg amba himilaya pink saltiga waxyaabahaas isticmaalaa aniga ani diet kaliya sameeyaa ma sameeyo wax exercise kuma daro maalmihii ugu horeeyay aan diet-ka galay waxaan bilaabay inaan jimicsi iyo exercise aan ku daro laakiin waa isku qaadi kar waayay yani waa isku xamili kar waayay waa isla sameyn kar waayay jimicsigii iyo diet-kii sababta cuntooyinkan cunaaya aad iyo aad bay u yaryihiin waa cunto yaroo qiyaasan oo kooban soo haddaan isdhaho jimicsi ku dar waxaan dareemayaa weakness yacni tabcaan inaan energy haynin oo kale markaan jimicsigii sameeyo inaan doonayo inaan guriga iska joogoon iska hurdo oo aanan waxba qabsanin oo aanan kicin baleesi oo kala noqdo qof caadsan oo kale soo waan post gareeyay jimicsiga waxaan dhahay may diet-kaaga kaliya wado wax jimicsiya ku darin soo sidii aan diet-kaygii ku watay alxamdulilah anoona wax jimicsiya sameynin wax socod gelin wax dhibaato badan gelin oo waxa soo kiilooya ay iga dhaceen hadda week ugu dambeysay baan jimicsi bilaabay inaan sameeyo soo maxaa la dhahay because waxaan rabaa muscleska jirkayga inaan dhimo because fatkii ugu badnaa baruurta ugu badnayd waa iska riday hadda baruur badan iguma harin soo hadda waqtigii waxaan bilaabay aan muscleskayga aan dhisi lahaa baa hadda gaaray soo haddaan bilaabay inaan jimicsi sameeyo socodoo kale baaskiilad xadhigka bood jimicsiyada caloosha waxyaabahaas haddaan bilaabay laakiin labadii bilood ugu horeysay wax dhan ma dhexgelin diet-kayga maan waxba dhexgelinin soo maanta waxaa idin duubi doonaayo kale
cuntooyinkaan cunaayo maxaan cunaa qureec qado casho waxyaabaha maanta cunaayo waa idin duubi doonaa insha allah. So haddii aad videoga ka heshaan cuntooyinka kale iyo waxyaabahaas part 2 part 3 part 4 waxyaabahaas aan idinka soo gelin doona. haddaad dhiirigelin aa u baahan tihiin oo kale oo iscaateynta ku saabsan waxyaabahaas oo kale yacni waa idinka soo duubi karaa video oo motivation iyo waxyaabahaas oo kale ah. midda kale gabdhaha ay fiirsado hal talabaan siinayaa. waxaa jiro dad laga yaaba inay fiirsan doonaan videogan rabe inay miisaan iska dhimaan laakiin go-aankii way qaadanayaan 3 shay dayt ku jirayaan maalin afraadka meeshoodii kusoo noqonayaan. walaalayaal oo gabdhaha noocaas oo kale waxaan rabaa inaan u sheego waaga ugu horreysay oo baruurta ay ku koraysay hal habeen intaad seexatay subaxnimadka umaadan soo toosin adigoo ballaadhayo gidaarkaas leeg baruurtan tartiib bay kuu koraysay aayar bay kuusoo koraysay. soo dayt haddii aa bilowdaan fadlan dib ha u noqonina gadaal ha eegin hore u soco yaa wax waloo adag wax waloo fiicanba waxa ka horeeya caqabada badan wax waloo qurux badanba dhibaata loo soo maray wax waloo wanaagsan si easy kuma yimaadaan. so insha allah waxaa idin leeyahay samra hadafkiina waa ka gaari doontaan haddaa iscaateynaysaan iyo haddii aa guulo kale aa rabtaan inaad gaadhaan iyo hadafyo kaleba waa guuleysan doontaan insha allah waa gaari doontaan hadafkiina. 3 shay intaad dhay samaysaan maalin afraadka macmacaankii iyo qashinkii dib ha ugu laabanina fadlan. astaghfirullah cunto maxaa qashin ugu tilmaama yacni waxaan ka waraa cuntada qashinka waa macmacaanka iyo waxyaabaha moorgareysana dukaanka lagu gaday waxyaabahaas dib ha ugu laabanina fadlan straight u socdo fadlan u samra dietka. wallahi maalin walba wax way targetkiina aad gaari doontaan oo miisaanku idinka wada degi doona haddaad yacni wax sax ah follow gareynaysaan. so waxa weeye inta hal habeen seexatid inta maanta dayt bilowdid ood caawa seexatid beri qofna ma soo toosayo isagoo dhuuban. waxa weeye wax wala fiican samir bay u baahan yihiin. aan 2 bilood aan hadda daytka ku jiray habeena badan baan gaajo ku seexday maalmo badan baa cuntadan jeclaa horteeda iyadoo lagu cunaayo baasankayga iyo dhagahayga iyo indhahayga iyo maskaxdeedaba aan ku fulan dhahay maya muraayada tagay isku fiiriyo waxaan dhahay maad gaadhay targetkaaga waa maya meeshaad doonaysa maad gaadho waa maya dib ha u eegin. daytkana 2 wiig ugu horeysa ugu adag 2 wiig haddaa soo dhaafto wiig saddexaad waa qof adag oo gentleman ata waa guuleysanaysaa. so gabdhaha oo daytka ku jira insha allah ilaahay idinla garab galo ilaahay ha idinla garab galo waa idin soo duceynaa insha allah ilaahayna tala saarta inuu samir idin siiyo aad daytka aad ku xamishaan aad ku dul qaadataan oo targetkiina aan ku gaadhaan. so haddana waxaa idiin soo gelinayaa sawiraantaydii iyo miisaanadeydii before iyo afterkoodii markii hore saan ahaa iyo markii dambe miisaanka iska dhimasaan noqday. soo markii ugu horeyso aan challengegan bilaabay miisaankaygu wuxuu ahaa 28.9 adi 3.8 iska dheh waxayna ahayd 4 bishii 11aad 2 usbuuc kadib waxaa noqday 9.7 buuro ah. waagii hore miisaan ma haysan jirin marka arkay inuu miisaanku iga degayo baa miisaan guriga soo dhigtay 26 bishii 11aad waxaa noqday 6.7 haddana waxaa noqday 6.7 de waa ujeedaan waxa weeye miisaanku si tartiib uu iga degayaa wax walood waqti gelisidba madhow toole way miro dhalayaan kaliyaad wuxuu baahanta wax walba inaad sugtid oo aad u samirtid ood waqti gelisid. soo 16 bishii 12aad waxaa noqday 27.9 haddana waxa weeye 31 bishii 12aad waxaa noqday 27.7 again waxa weeye bishii koobaad 11keedii waxaa noqday 7.1 haddana bishii koobaad 13keedii waxaa noqday 69.7 waa markii aan 60meeyada aan arkayaan soo uriyay. soo waa kaasa miisaankaygu saas uu iga degayay tartiib sawiraanteedana waagii hore saana u ekaan jiray caasho buura ahaa haddana waxaa noqday gabadh yar oo 15 jira wallaahi baruurtu wax weeye waa cadow yaa cid walba kuu jibinaysaa. wejigayga fiiriya waagii hore saanu ahaa sankayga indhahayga wax dhan ma muuqan jirin baruurba i buux dhaafisay dadka wejiga ka naaxaanahay markii dambena waa kaasaa sankii way soo baxay indhahaygii wax walba hadda caadiya u muuqdaan waagii hore ma muuqan jirin. alxamdulilah ilaaha ma hadda iskale oo meeshaan i gaarsiiyey waagii hore sawirada markaan galayo saanu ahaa aan fadhiyo haddana saanaan noqday. soo videogu idinku dheeraaday intanaan kusoo ekeynaya insha allah cuntooyinkii waxyaabahaasaan cuno diet plankeyga videoga kan ku xiga baan idiin soo gelin doonaa insha allah. soo intaan videoga ku xiga ka kulmayno waxaan idinkaga tegayaa maca salaama.